xubno ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo maalmahan ku sugnaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay maanta kulan la qaateen ururada bulshada rayidka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaybahooda kala duwan. Kulankan ayaa ka hadalkiisa waxa uu ahaa sidii ururada bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe loogu wacyigelin lahaa ka qayb qaadashada doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka sanadda 2020 ilaa 2020 ee ah qof iyo cod. bulshadii ka soo qayb gashay kulankan qaarkood ayaa su'aalo weydiiyay xubnaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka. marka hore waxaan rabaa doorashooyinka shaqada adag ay soo qabteen dadka Soomaaliyeed iyo sida ay ugu dhabar adeegeen in ay soo gaarsiiyaan maanta meesha aan marayno marxaladda aan marayno. marka hore waad ku mahadsantihiin dadaalka aad ku bixiseen dadka Soomaaliyeed. marka xigto anigu waxaan ka mid ahay ama aan ahay dhalinyarada Shabeellada Dhexe maadaama dhalinyarada ay tahay 75% نلقو قياسه واحد مناي واحد يبتوني بيقول عيان فضح صدق أنا يني دليرة محاكا قبل شيء سنة يقول تقدر شوي إنك كارن تلاك عن قاعدة كرنا دورشة كدعي دون تدور دولات كبيرة. هوين كنا وقت بطاطا وثاق الشقيسين وحلا صومر يدور حلبان كيدورين شن فوضى يدورين كنت يفوق في دورشة صومر تلو كتير هذا ما أنت وحيد تاجرت وقف يعض قف يعض ما كمان دعي كرتي بدي سنة سؤالة يهدين الله طلبك صوب حبايا وحيدان كل جت قف والبا إني حسبي له قبل كاين كسوج الاستيت الإيماني قرار حفيزون فري فوق السوق قرار حسبي له يجا وتاجين حقيقة يجا وتاجين عند أو قصة خاصة عند سيدة قصة يجا حقيقة هاي أنا قفت عن رأني كان هاي أول قبل نقولصون مجعابين أو نقولصون حلين أو ملك نقولك هنا أنا عن دورنا نظري سبع سؤالات وحياتها إنك جوجا هرجيسة ديدا مقدشة محاد كذا مع سنتين حاسب وطلق شيء إنك هرجيسة جوج يكمل بوساسة جوج واسكت عق ديدا مقدشة ديدا حاول طلق شيء كوب ninka jooga waxaan ku leeyahay sheegay banaankan kora jooga yani imaadi karin amni darteed asna maxaa ugu tala gasheen waa su'aasha labaad tan saddexaad ninka codka ku ridaya ana inaan soo baxaan rabaa codka aan ku rido ninka codka ku ridaya ee dooranaya ee soo bandhigay soo qadimay amnigiisa maxaa ugu tala gasheen ilaan 151 meeshay martay isloogna wixii ka dambeeya wax yar maxaa ugu tala gasheen amnigiisa asagan Khadiijo Cusub Lacali oo ka mid ah xubnaha sare ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka jawaabtay su'aalihii la weydiiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. fartuun waxay tiri 175 dhalinyaro waa xagulaysa dhalinyarada dalka waxay u haysaa waa inuu qabsado maxaa yeelay mas-uuliyadaas saaran dhalinyarada diinki beri noqon lahaa inay mas-uuliyad qaadaan laga tago ayagaa laga rabaa inay involve noqdaan inay wax kasta oo shaqo qabanayo ay ka mid noqdaan inay xuquuqdooda u dagaalamaan xuquuqdooda waxbarasho midooda siyaasadeed midda dhaqaale intaba ayagaa laga rabaa inay inta meelaha tagaan xafiisyada xafiisku wuxuu ku shaqeeyaa anaga doorasho waa ugu imaanaysa laakiin doorashadaas waxaa dhimaa dhalinyarada inay ka mid noqdaan dhalinyaro firfircoon inay ka noqdaan axsaabta markay axsaabta dhalinyaro firfircoon ka noqdaan siyaasadda inay soo galaan inay maaragtay dejiyaan nidaamka iyo ku shaqeynayo inay xuquuqdooda magaalada jooga ilaa hadda dad la soo magacaabay u badnaayo wixii ka shaqeyn jiray samayn karaan in wacyigelinta loo sameeyo inay xuquuqdaas leeyihiin inay kasoo qaybgeli karaan nasarkooda in la doorto inay wax doortaan in loo fududeeyo meelaha ay wax ku dooranayaan ya kadibto ama meelaha la isku diiwaan gelinayo waxaasoo dhan waa ka shaqeynaya regulations ay jira ama habraacyo loo raaci doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaasoo dhan waxay soo geli doonaan wacyigelintu waa bilaab insha allah waa sii socon doontaa waana soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay contributionkiina ama waxaad maaragtay ku kordhin kartaan arrimahan oo dhan waa muhiim maxaa yeelay sida aad sheegtay ninku baahi dadka aysan qabin oo gaar aad qabto baahidiina waxay u baahan tahay tixgelin haddii aad idinka sheeginana cid kaloo idin sheegaysa sidaas darteed inaad ka qayb gashaan oo wax kastoo la sameynayo ama wacyigelin ha ahaato ama in doorka ha ahaato ama in diiwaan geli ha ahaato inaad ka wada qayb gashiin waa soo dhaweynaynaa waan rabnaa waan idinla shaqaynaynaa Saadax Al Ismaan dalka News TV Jowhar.